farxaan qaroole waxa lagu bixiyay qarahu ku gadi jiray suuqa dhexdiisa dadku soo basaasi jiray dilalka qorshaysan dadku guryaha u raaci jiray soo dili jiray miinooyinka baabuurta ku xiri jiray marka waxa waa naf walba adduunkan waxay geysatay leedahay tuunkii laga qabay Mahad Salaad inuu ka dambeeyay dilkii loo geystay taliyihii guud ee qaybta gobolka Banaadir Sareeye Guuto Mahad Maxamed Salaad ayaa banaanka u soo baxay kadib markii warbaahinta ka soo muuqatay haweeney la sheegay inay tahay xaaska Mahad Salaad iyadoo oo sheegtay in loogu aargooyay Generaal Galaal oo ay isku beel yihiin Mahad Maxamed Salaad maadaama bay tiri oo farxaan qaroole ka dambeeyay dilkii loo geystay Generaal Maxamed Nuur Galaal oo lagu weeraray Hotel Afrique haddaba waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalka la yaab kale iyo tuunka oo sii cadaanaya in kooxda Damul Jadiid ay iyaga qorsheeyeen dilkii loo geystay taliyihii guud ee qaybta gobolka Banaadir Sareeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan rabbiha u naxariistee waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalo cadaymo ah oo muujinaya haweeneydan oo ku faanaysa in ay ka dambeeyeen sidoo kalena markaasi ay qayb weyn ka qaateen dilkii loo geystay Mahad Salaad ayna ku faraxday markii la dilay ninka loo geysto taliyihii guud ee Farxaan Maxamuud Aadan farxaan qaroole haddaba saaxiibada intaan u gudin muuqaalka dhamaantii la gareeya YouTube-kana subscribe saarta gambalaalkana furta kuma haysanid waxba yaana walidin ku daalana daawasho wacan hore kugu sheegay anaga waxaan nahay qoyskii Generaal Galaal oo wiilkaada farxaan qaroole uu gacantiisa ku dilay Generaal Galaal oo 84 sano jiro Hotel Afrique January 31st 2021 marka adeer waxaan ku sheegayaa waxa tiri hadda videogaada ku sheegtay waxaan u maleynayaa tiri wiilkayga inuu dambi galin maxaa la ummadda Soomaaliyeedna dadkii inuu qayb kala dhinac kala wax ka siiyo dadkii oo asaga xiriir kala lahaay marka adeer waxaan ku sheegayaa ma qaana inaad god ku nooleed 5 sano oo wiilkaada intuu maxaa la shabaab ahaay markuu dawladda ku soo biiray asagoo maxaa la ciidanka booliiska haramcad marka ilaa intaas wiilkaada inaadan ba ka warqabin ay ila tahay aniga sidaad maanta u hadlayso waxaad iska dhigaysaa inuu wiilkaada nin dambi weligiis galin inay tahay marka haddaadan ogeyn anaa kuu sheegayo wiilkaada falan dambiyeed aad iyo aad u weyn uu sameeyey wiilkaadana waxa loo dilay waxa waaye wixii ikraan tahliil Allah u naxariista loo dilay sakaaladii ay u dileen Faad Yaasiin iyo Farmaajo iyo rejiimkooda kula najiis iyo kulli maxaa la jangiski oo Farmaajo rejiim sababta loo dilay waxay ikraan tahliil Allah u naxariista waxay ogeed sensitive cases haysay iyo sirta fal dambiyeedka oo maxaa la dhahaa ay wax ka ogeed marka sidayna sirti u sii deeynin ayaa loo dilay gabadha miskiinta ahayd Allah u naxariisto marka wiilkana waxa loo dilay maadaama uu wadankii dawladda cusub timaaday inuu sirtii bixiyo marka waxaan ku sheegayaa waxaan u jeeday dad badan oo Soomaaliya oo qaylinaayo dhahayo dawladda Xasan Sheekh dishay Xasan Sheekh dawladdiisa dadku wax dila maaha ma fahamtay wiilkaadi waxa dilay waxa waaye shabaab dishay lagu leeyahay laakiin waa la shaqoolay waa la dilay waxaana dilay waxa waa wixii horay dadku wax dili jiray ma fahamtay waa dadkii afweyne rejiim oo waxa ku sheegay aabahay la soo shaqeeyay isa sadaqaan u soo weerareen isaas Morgan iyo maxaa la dhahaa Ali Samatar iyo waxaasiyo ay rabeen inay qarijiyaan marka waxa waaye waa wax looga bartay afweyne rejiim wixii la soo shaqeeyo way dilaan marka tacticadaas waxa isticmaalo waa dadkaas marka waxaadan u dhihin markii la soo isticmaalay adeer waxaan rabaa inaan ku sheego wiilkaada waa ayga Farmaajo uu leeyahay ayga waxa lagu yaqaanaa meesha qabal yiraahdo aadaya oo maxaa la dhahaa soo ataagareenaya marka wiilkaada nin saas oo aqli badan ma ahayn marka waxa waa ayaan daro adigii dhamaayo dhalay inaad maanta meel la soo fariisato oo iska dhigto inuu wiilkaada wiil fiican ahaay oo ana oyso waxaan aniga meeshan u soo galay falcelinta uga sameynay oo hintaadan la yaabay ma fahamtay yes aniga waan ooyay oo aniga marana emotional noqday aan naftirkay maxaa la yiraahdaa video soo duubay anigoo emotional waxaana u sameeyay saas waxay ahayd beeshaniya aabahay ka aamusta ma fahamtay videogaas waxaan ugu ooyay dilkii Farmaajo anaga geeri waan naqaanaa dhimasho waan naqaanaa waxa waa iimaan aan leenahay oo qadarka Ilaahay waan naqaanaa laakiin Ilaahay wuxuu kale intuu yiri cadaaladda wixii ku dulmiyay raadso oo maxaa la yiraahdaa cadaaladda laga siiyo sidaas darteed waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa aan sharciga hormarino sharciga horkeenno wixii gacan ku dhigliyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaay especially haramcad taliye xijaar oo wato iyo wiilkaada marka intaas kaliya kuma ekeen adeer wiilkaada waxa waaye wuxuu sameeyay jiray dilalka qorshaysan oo waxa loo haystaa Cabdicasiis Afrika dilkiisii waxa loo haystaa dilal kale oo badan oo saldhigii booliiska waa bari oo taliyihii checkpointska oo lagu dilay maxaa la dhahaa December 20 maxaa la May 27 Ramadaankii hore 2021
oo lagu dilay maxaa la yidhahdaa saldhigga booliiska intuu farxan qorol isugu yeeray oo caddaynteedii iyo rakarkeedii lahaayo waan soo gelinaya faldabiyeedka oo farxan qorol la sameeyey oo weliba taliyahaas qaraxii wuu ka badbaaday covidaa jira waagaas oo waxaa lasoo ogaaday inuu farxan qorole ilaa isbitaalka u dabagalay oo oksijiinta ka siibay taliyahaas oo haddana bireeyey sida xayawaanka u bireeyey marka adeer waxaan kuu sheegaa wiilkaada wuxuu ahaa fircoonkii soomaaliya loo soo diray fircoonkii nebi muuse oo waagii nebi muuse oo dumarka oo maxaa la yidhahda wiilasha dili jiray wiilasha oo maxaa la dhahaa nebi muuse dadkiisa layn jiray gabdhahana sii dayn jiray marka wiilkaada teeda kaleenta waa nin fulay ee waaye oo argagixiso iyo wuxuu ku qaraabtaa dhuumasho iyo sidii argagixisada lagu yaqaanay wiilkaada waa al-shabaab adeer waana ogtahay wiilkaada inuu shabaab ahay farxan qorole waxa loogu bixiyay qarabuu ku gadi jiray suuqa dhexdiisa dadkuu soo basaasi jiray dilalka qorshaysan dadku guryaha u raaci jiray soo dili jiray miinooyinka baabuurta ku xiri jiray marka waxa waaye naf walba adduunkan waxay geysatay leedahay marka maanta inuu wixii asaga uu ka shaqaynayo lagu dilo waa waxa uu asaga mutaystay waa ilaahay cadaaladda noo sameeyay teeda kale inta rabay inaan kuu sheego 2 sano almost 2 years ayaan duceysanaynay Soomaaliya ku soo soconay waxaan rabnay inaan cadaaladda hor saarno oo cadeymaha aan ku hayno wiilkaada aan maxkamadda u soo bandhigno marka alxamdulillah ilaahay ducadii naga aqbalay oo ilaahay adduunka ka waday ma fahanto qaraxii oo dadka ku dili jiray ilaahay dhadhansiiyay oo ku dilay asaga marka waxaan kuu sheegayaa adeerow wiilkaada waxa waaye fircoonkii Soomaaliya waa Morgankii Soomaaliya waxa waaye Morgankii beesha hawiye habargidira sheeganaysiin wiilkaada qaasatan waxa kaliya wax kale inta rabay inaan kuu sheego beesha hawiye kaligeed oo dili jiray maxaad uga celi weysaa dad wiilkaada saas u jeceshahay maxaad mooryaannimo intaad ka gaartay adigoo mooryaannimo meesha aniga maanta kuguma diganayo laakiin runta kuu sheegay runta hadii lagu sheegay dee digasho noqoto so be it ma fahamta laakiin waxaan kuu sheegayaa wiilkaada wuxuu samayn jiray adeer dilalka qorshaysan wuxuuna beegsan jiray beesha hawiye bas raxaweyn ma diri jirin beesha daarad ma diri jirin reer waqooyiga ma diri jirin oo Soomaaliya joogay darta iyo waxaas ma diri jirin marka inaad wiilkaas maanta aad sheegato oo maanta la yiraahdo oo beesha hawiye oo wax magaratadana ay u soo heeliyaan wiilkaada waxa maxaa la yiraahdaa u heelinayo maanta oo cabaadka ka yeerayo oo dawladda xasan sheekh ku eedeynayo waxa waaye beesha daarood ma fahamtay ayaan daray ku tahay inaad adigoo habar gidir sheeganaysid oo waliba reer Xaaji Saleemaan dulmiga General Galaalka galena waxay tahay gurigeena shir kale xoog ku haystaan reer Xaaji Saleemaan waxa kale inta ku sheegaya wiilasha cayr waxa ka baaka duugay oo dilay mahalkii la dhahay waxa la dhahaa wiilka la dhahay Cabdicasiis Afrika wiilkaada oo ahay iyo kii kale inta la dhahay Saadiq John maxay xilal ku heleen wiilkaada General adeer saas laguma noqdo wiilkaada General ma aha General waxa generalnimada looga dhigay waa inuu dadkiisa xasuuqo marka waxa waaye maxaa la yiraahdaa ayaan daro inaad maanta aad la qeyrootada aad la oysid oo hinaa ka horeysay teeda kale inta waxa waaye maxaad la oynaysaa because ilaahay ku duleeyay ilaahay saas ku galay because waxa waaye waxaad geysatay waaye ma fahamtay waxaad mutaysatay maanta inaad adigoo oday weyn oo 80 jir TV-ga soo hor maxaa la saxaafadda soo hor istaagtay